gudoomiyaha xisbi lagu magacaabo taageerayaasha mahdiga ah ayaa waxa uu wareysi u siiyay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waxaan ka wareysanay warqad qoraal oo nala wadaagay warqadaas oo ku socota madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha al-shabaab wuxuuna ogeysiiyay gudoomiyaha golaha aqalka sare gudoomiyaha golaha shacabka iyo waxgaradka Soomaaliyeed heshiis ama dib u heshiisiin al-shabaab iyo dawladda ah ayaana ku qornaa haddaba xiriir uu la sameeyay al-shabaab oo wada hadal oo dhaxmaray iyo sidoo kale xiriir uu la sameeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo waxa ku qoran warqadan oo nala wadaagay ujeedada xisbigan ayuu faahfaahin ka bixinaya gudoomiyaha xisbigaasi waxa lagu magacaabaa Xuseen Cali Cilmi soo dhaw gudoomiye waxa marka hore faahfaahin ka bixisaa xisbigan magaciisa iyo ujeedada loo asaasay bismillaahir rahmaanir rahiim xisbiga asalka markiisa hore waxa la aasaasay 15 May 2005 magaciisa hore wuxuu ahaa xisbiga dhalinyarada siyaasiyiinta Soomaaliyeed haye 2004 musharaxiinta madaxweyne ayaan kamid ahaa shirkii Ambakaasi haye marka inta shirkaan joognay waxa loo tartamay mataqaan xawaaye young Turkish iyo veteran politician siyaasiyiinta odayaasha siyaasiyiinta dhalinyarada loo tartamay haye qolooyinka beesha caalamka talooyin bayna siiyeen waxay yiraahdeen waxa waaye mataqaan meel kasta aad ku hartaane la luusha qaadanina qadiir dilin ku yimaado tanazulada hatta tanazulada lacag qaadanina haye marka wixii ka dambeeyo doorashada tan wixii ka dambeeyo waxa la gacan waxa lagu siinayaa dhalinyarada daadiyada lagu siinayaa dalankaasi way oofiyeen Shariif Sheekh Ahmed baa yimid Cabdullaahi Iskadib kadib waxay maal xataa sheekh kadib waxay yimid farmaajo sidii ku socoto odayaasha halkaas ku hareen waa gartay xisbigan magaciisa waxaan bedelnay iyo sababta keento waxaan bedelnay muddo hadda 3 bil laga joogo bedelna magaca waa gartay waxaan la baxnay xisbiga taageerayaasha mahdiga sababta waxay tahay waxa soo dhow xilligii mahdiga uu ismuujin lahaa waa ku 924 baa khilaafadii islaamka Uthmaaniyiinta la riday ay yimid caalamka riday hal qarni nabi sallallahu alayhi wasallam hal qarni markii mataqaana ay soo wareegatoba ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu umadiisa soo saaraa min diinta dadka ugu soo cusboonaysiiya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri يبعث الله على رأس كل 100 عام ما يجدد الأمة دينها قرن كالسبب بالله ويسا أما مدعي إلى سبحانه وتعالى وحوصة صاريا قصدي نسو أسبوريسيا فقال الله بعد الأخرتي مركي حلق قرن لوجايا أما بقرصة لوجايا والله بكون أفر لبعتنك وكون أفر لبعتنك مدد نسكال السوغيا ودكتي نسو أسبوريسيا معها ننعالي معها وحوي مهدي قوية وفرعي محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله علي بن أبي طالب الدلال قال أهان حسن ابن علي ابن أبي طالب فرعي سويه مقعي سوى علي محمد ابن عبد الله العلوي الهاشمي القرشي وعلى فيني الله كنا في الباسنك إنه اسمه وجيه وكل واقع مع النمليسي عالم كانوا حاكد عيا اسبدل وين باكد عيا قرمنا مدوما ويبابئسا ودرجة هذا ما تأود الله قعنت أيام نقول لي قارنا عالم كان يقصنا عالم كهرح وسوق الصبي أفر من كان وانك شهاد وين لكن وأركت الشيعة صومة كل ما لما مسلمين والنبي سليمان إيا ذو القرنين إيا متقان لما قالها وكانها بخت النصر إيا نمرود منك شهاد قارنا عالم خلصنا ومحمد ابن عبد الله العلوي الهاشمي القرشي مهدي وين لكن حسين وحوي وأركت دتك شيعة يا أمسين صومة مية شيعة اسكو أركب منهن شيعة وحياة نكا أمسين نكا أمسين اسكو من منهن محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي أو فرعي متقانا عواي مقعد محمد عبد الله لما يراهنه ما قرأتي كان من كان أو مسلم سنة أي وطان أو صحراء أو نسوتك صوراتي وفرعي حصل ابن علوي مركا يهود وكرنا سبتقانا النبي صلى الله عليه وسلم مركو صباحي وحيجي على يعني إنه نكا صباحي أو النبي وقدم يقول نغضه من رب إسرائيل بيجعل عين سيدا فكر الشيعة يوم وحيجعلهم قفك صباحي إنه النغضة فرعي حسين ابن علي بيجعلهم مركا ما هذيك الساعة وكذا واقعية بين الركن والمقام مكان وكذا واقعية كان يجي الشيعة أول كان وكذا صباحي سرداب
waddankooda ku yaala ma garatay yuhuudana waxaas u samaysay waa maasanta waxaa ii sheegtaa xisbigan ma diiwaan gashan yahay oo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka diiwaan ma ka haystaa ku meelgaad uma baahno ma u baahno mise ma haysto ku sheegayaa 2024 markii la gaaro caalamka muslimka oo dhan waxay noqonayaan ansaar mahdi taageerayaasha mahdiga noqonayaan gaal iyo munaafiq oo idil ay yuhuud ugu reeyso waxay noqonayaan taageerayaasha dajaal bay noqonayaan kan kale wasiirkii dhintay ee federaalka iyo dastuurka ninka la oran jiray xoosh tufiil baan shirkii sinkitankii ee hotel Makka al-Mukarrama ayaan ku weydiinay noogu yimid waxaan weydiinay doorasho one man one vote qabanaysa muddo 2 sano laga joogo hal mas'uul mootayaad taqriiban hadda 2 sano laga jooga wuxuu noo sheegay ka dawlad ahaan in ay ku fashilmeen dalkii inay qabtaan bay ahayd tirqob la sameeyo marxuumka waa dhintay wuxuu yirina ma ogin ma hayno laakiin waxaan rabaa annaga 2024 iyo duni cusub iyo wax kale oo dhici doona ma hayno had waxaan joognaa 2020 waxaan joognaa October 10 ay maraysaa dalka dawladda ka jirto nidaamka ka jiro xisbigiina ma laga warqabaa oo dawladdu ma og tahay sida wax ku shaqeysaan ujeedada leedihiin wada saxan ma soo marteen madaxweynaha dukumeentiga wuu hayaa ma garatay waxaan qabanaa hawl dawladda ay ka caajistay siyaasiyiinta kale ay ka caajiseen oo ah dib u heshiisiin iyo xabad joojin dalka ka hergasha aqoonyahanka Soomaaliyeed siyaasiga Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeed nin kasta al-shabaab inuu idaacadaha kala hadlo oo nabad u kala hadlo ama masaajidada mikrofoonada u kala hadlo way ka baqsadeen way ka baqeen aniga waan u bareeray canshuurta qaranka wax ku soo bartay hooyaday aabay kharash ay leeyahay kuma soo baranin من دكتور hoose ilaa iyo heer jaamacadeed master degree waxaan ku aaday taqaana deeq barasho dawladda ay leedahay qarankan wuxuu u leeyahay dembi u leeyahay deeq inaan gudaha ku talagalay ilaahay dartii baan waxaan marayaa masaajidkii 37 baan maraynaa muxaadarooyin aan ka jeedinayno mahdiga iyo taqaana xawa isbeddelka caalamku imaan doono iyo muxuu ahaato xabadooyinka dib u shin socoto dawladda waa hagata xafiiska wasaaradda taqaana kulli waa madaxweynaha wasabkiis baan ugu wada shubay su'aal arjada lagu dhiibay taqaana oo la taliyo madaxweynaha xuseen waa mahadsantaa fursad kale aan rabaa inta su'aalan ka weydiin doona kuwa hadda sheegaysan su'aalan ka weydiin doona waxa ii keentay oo aan hadda gacanta ku hayaa warqad waxay ku socotaa madaxweynaha dawladda waxay ku socotaa gudoomiyaha xarakada al-shabaab sida uu qorantaa weeye waxa uu gudoomiyaha aqalka sare waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka aan filay inaad ka wada gudoomiyaha golaha shacabka waxa og wax garadka Soomaaliyeed ujeedada warqadan oo dhowr baaragraaf iyo dhowr xaansho ama warqadood ka kooban aan rabaa inaad dadka Soomaaliyeed u sheegto muhiimadda al-shabaab la leeshiinayay dul istaagba muhiimadda waxay tahay dagaalka sokoy Soomaaliya muddo 40 sano wuxuu ku socday mid qabiil shisheeyada Soomaaliya burburkeedii ka dambeeyay waxay ogaadeen qabiilka in laga heshiin karo kadib nidaam caqiida ayaa loo bedelay xilligii dawladda Cabdullaahi ay dhalatay waad ogtahay dawladdii mataqaana oo baydhabo joogto xamar waxaa dagaal ku dhex maray muxuu ahayd warlordkii xamar joogay iyo maxaakiimtii baa dagaal ku dhex maray kadib markii nimankaas laga adkaaday dawladdii baydhabo loogu tagay kadib Itoobiya dawladda kaashanayso baydhabo taqaana waa iska soo ruuxday waxaan isugu soo galay muqdisho laga saaray muqdisho dawladda qabsatay arrintii muqaawamo iyo waxay gashay taqaana xawaaye in qaab diimad isugu habar wacdo oo dagaal uu dhaco taqaana muddada socday yaa dawladda Cabdullaahi taqaana xawaaye ee ka dhacday kadibna Shariif iyo gruubkiisa la keenay Shariif iyo gruubkiisa markii la keenayna nin liidada taqaana senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Roos Fangal liidada wuxuu yiri waxa la gaaray islaamiyiin Soomaali xilligan kala jabin lahayd macna Shariif gruubkiisa iyo waxa la kala jabinayaa gruubka taqaana xawaaye xisbul islaam iyo ashaab markaas ku dhinac ahaa faahfaahinta dheer adoo aan gelina waxaan rabaa si dadku waqtiga aan ugu baaxaamino inaad dul istaagto warqadaada muhiimadda waxay xambaarsantahay muhiimadda waxay xambaarsantahay dhiigga Soomaalida qubanaya ee marna qabiil ku qubanaya haddana mar magac caqiido ku qubanaya Soomaalida ee uma qodna cidna uma maqna iyo mataqaana African mataqaana Union wax la mid ah dadka isku hadlan jireen Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay isku hadlayaan
إذا كحرناضان عدو مقال مجرته مقعود الله وحلو عنا دلكو متقان على خيراتي في بعض البوابة مراكن كمتقان الشباب وحقوقتي بدأ بنتلاند وحقوقتي قاب كسب العبياد الوأبوري وما صدق ورقدان qodobka koowaad ee warqada ku qoran waxa uu dhigayaa xabajoojin labada dhinac oo ka bilaabanaysa 1 September 2020 ilaa 1 December 2024 xabajoojintaas waxay u dhaxaysaa baa leedahay al-shabaab iyo dawladda federaalka ah ma mid hadda la go'aamiyo la gaarayba ma mid la gaari doona ilaa waa soo dhaafnay September warqada waxaan qornay aan u maleynayaa sida ku qoran 21 August baan qornay ayada khusaysan waan u kala dirnay ogolaashuhu dowladda federaalka waxay ishayeen dowlad goboleedka ku mashquulsaneen watii muddo bil ka badan watay xamar wada fadhiyeen ashabaabka dhexdooda taqaana magaciisii waxaa xanuunsanaa gudoomiye baa xanuunsanaa ayaga dhexdooda taqaana waxaa waaye mashquul bay ahaayeen yaa kuu sheegay inuu gudoomiyaha shabaab xanuunsan yahay Soomaalidu waxa waaye dadkan waa ehel iyo xigto weeye qaraabo weeye mataqaan hawshan baa la wada joogaa waa runo waa ehel iyo xigto laakiin dadka qaar baa naga dhaxaysa ehelnima naga dhaxaysa wiilasha dagaalamaya labada dhinac mataqaan waxa waaye adka adeer baa u naftaqaan kulli waa ka wada gudoomiye intaasoo dhanba ma diidanin laakiin dadka qaar in xogtooda la helo way adag tahay al-shabaab in gudoomiyadii xanuunsanaa xogtaysa ma haysay ma la hadasha adigu ma ogeed gudoomiye cusub inay ku dhawaaqaanbo فهل ياسين جروبي سما كذا واجي إذا عدد تقارير كنت شو بعمل شيء تقارير كنت شو اللي كنا واقع كما أنت سو كليا حكتها هي صوم حك وين مية هي سامس أنت سو كليا حكتها هي أنا تاسمي كذا كنت تاسا كوك فلمبا تاسا كوك فلمبا maya aniga waxaan rabaa waxna waa moogtahay wax adig ku gaara oo aad wadid oo aad rabto inaad dadku ka gaddo waxna waa wixii dawladdu baahisay warqadaada waxaad leedahay waxaan gaarsiinay al-shabaab iyo madaxweynaha Soomaaliya al-shabaab ma ku sintay oo ma gaarsiisay oo ma ogtahay inay warqada gacantoodii ku dhacday maadaama iyaga cadow Amerikaan oo ceersanayo telefoon toos iyaga ma qabtaan mar aan telefoon ku hadalka iyaga waxa loo sii maraa taqaanaa qof iyaga la jooga adna ku yaqaana iyagana yaqaana oo marka halkaas dan dacwo iyo waxa ka gashay ismaayo ayaa dagaal sokay ka dhacday dagaalkii nimankii mataqaanaa waaye halkaas looga wadayo waxa looga yeeray jirib kadib bu'aana loo kaxeeyay bu'aana markii loo kaxeeyay min nabadoon ama taqaanaa oo mataqaanaa waaye adeerada yaqaanaan baan la xiriiray min sarkaal buu ugu dhiibay mataqaanaa oo saraakiisha mataqaanaa waaye mataqaanaa dhaxay iyo fariiga ma garan karo ninkaasi waan waa hadalnay arintii wada dhacay waxa sarbar ku dilay buu yiri muxuu ahaa marka ninka sida ku dhameeyo waxa kale oo leeyahay wasiirka Soomaali memo bay leeyihiin wasiirka taqaan waaye wasaqaasi wasaqaasi taqaan waaye number wasaq laga xiriir ayuu leeyahay niman ka wada xiriirnay waa u soo galiyay wuxuu yiri email lagu siiyay sax email ku soo dir buu yiri laakiin gudoomiye gudoomiye xogtaadu si u dhameystiranto fursadna iyo ogolow inaan su'aalo ku weydiiyo waqti Allah waa ku siinayna ninka lagugu dhiibay telefoonka oo aad leedahay waa sarkaal sare oo al-shabaab ka tirsan iyo kan aad leedahay website-kooda aan ka helay number oo iga qabtay xiriirka ay hayaan iyo magacyadooda ma kuu sheegay ma garan karo soo waxa waaye maadaama iyagu aysan magacyada aysan sheegaynin aniga mataqaan muhiimaddu waxay tahay inaan fariinta aan gaarsiiyo anigu ma yihiin sirdoon mataqaan oo iyaga magacyadoodii waxa raadinaya mataqaan darajadooda ma yihiin laakiin haddii muhiimaddu waxay tahay inaan risaaladii aan gudbiyo bayn hujada tahay laakiin ina askari u gudbisay ina qof caadi u gudbisay ina oday dhaqan u gudbisay sidee ku ogtahay ilaa waxaan leedahay fariintiidu way gaartay al-shabaab nin shabaab hogaamiya iyo nin askari oo shabaab ama maleeshiyad oo dagaalamaya hina wanaag iyo xiriir kama dhaxeeyo oo isma helaan isma maqlaan ma kulmaan fariinta aan leedahay shabaab waa ku simo way gaartay ma waxaad ka wadaa midaan qof inta la hadashay aad u dirto qofkaasna aadna aqoon wuxuu yahay maya waxa ku yirtaqana waxa way Soomaali memo iyo askari ku yirma garanaysaa ninkii mataqaan waxa way meesha maamulayay WhatsApp-kan ku wada xiriirnay waan wada hadalnay markan waa hadalna mataqaana WhatsApp-ka baan ugu gudbiyay kadib mataqaana saddex email buu siiyay saddex email ku soo dir buu yiri saddex email baan ku diray waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol madaxdooda sare inay gacanta ku hayaan madaxweynaha Soomaaliya wax warbixin ma ka hesho markaad u gudbiso warqadan madaxweynaha in muddo waxaan hortaagnaa xafiiska ra'iisul wasaare xafiiska madaxweynaha labada agaasime ku sime baa arinta hortaagnaa
in muddo ah oo waraaqihii aan dirnay aysan gudbinaynin xataa Saad Cali Jeelle wuxuu ii sheegay inuu madaxweynaha gudbiyo laftiisa shaki weyn baan ka qabaa laakiin waxaan helay wasafka madaxweynaha laftiisa baan helay oo aan u gudbiyey mataqaana dokumentiyadii caawo iyo saaki mataqaana 2 jeer asoo khad ku jiraan helay waan wacay igama uusan qaban marka filla Soomaaliya ilaa hadda inay nabad iyo mataqaana xabadii u diyaariyeen iyo ma muuqato al-shabaab ma ku muuqata inay nabad diyaar u yihiin ragii Allah hada shay aadna aqooni waxay yihiin aan ku xaqiijiyay miya maya al-shabaab waxay mataqaana diyaar u yihiin inay u diyaar garoobaan isbeddelka caalamku imaan doono mahdiga weligood waxay raadinayaan jihaad islaami ah iyo khilaaf islaami ala minhaj an-nubuwwa ayaa ku soo socotaa taasi u diyaar garoobayaan waxaan meelahan joogo mataqaana wax weyn uma arkaan waaya marka adaa wakiilka adaa ka keeni kara al-shabaab nabad miya al-shabaab waxa ku yimid waxay u diyaar garoobayaan khilaafada waxay u diyaar garoobayaan al-shabaab adiga miya al-shabaab ballan qaadayna nabad ka keenayso labada dadku u sheeg al-shabaab hadii dawladda mataqaana laga helo nabad iyaga nabad waa laga leeyahay madaxweynaha waxaan u diyaariyey oo aan mataqaana qoraan ugu duubay qoraan ugu sheegay ragga iraacay la kulankiisay in Sheekh Bashiir Ahmed Salaad Sheekh Nuur Baaruud Sheekh Somow General Saciid Daare oo tariikhda ciidamada federaalka ahaa Maxamed Maxamuud Guuleed ra'iisul wasaarihii hore ana wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Cabdi Yuusuf oo asna mataqaana ahaa wasiir xildhibaan ma ka warqaba inta maxaa ku dooratay intaasi waa odayaal iyo culamo Soomaaliyeed intaasi mataqaana waxay taageersan yihiin shaqada aan wadnay taageersan laakiin iga xujuma laakiin waa odayaal iyo culamo weeye intaasi waxay diyaar u yihiin mataqaana madaxweynaha markaan la kulmayno inaan israacno waa maasanta waa ka hubin doonaa ayagana isla warqadaada qodobka 6 waxa ku qoran in la fududeeyo isku safaridda dhulka Soomaaliya dhaxdiisa laga bilaabo Ras Kamboni ilaa Looyacade hadii qofka safraya uu yahay mas'uul al-shabaab ama daacish ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare wasiir iyo wasiir ku xigeen agaasime waaxid way badan yihiin ilaa saraakiil ciidan ayaa ku qoran in al-shabaab gudahoodiina ku safri karaan dhulka Soomaaliya oo dhanna ayagana shabaab ay ku safri karaan lees nabad geliyo aan lees taaban waxa sheegaysa wax qurux badan weeye laakiin ma adaa damaanad qaadaya may waa markii waxaan qornay warqad kale aan idinka waxaan qornay Turkiga madaxweynaha Turkiga email khaas baan u diray oo aan kaga codsanay inuu uga shaqeeyo qorshe wuxuu ahaa 5 qof oo dowladda ka tirsan ama madaxweynaha hogaamiye ama ra'iisul wasaare hogaamiye iyo 5 qof oo ka tirsan al-shabaab oo gudoomiye hogaaminayo in la soo geeyo Ankara caasimada mataqaana Hawaii Turkiga halkaas 10 qof lagu saxo markii la saxo ayaa la oran karaa qodobadaasi way dhaqan galeen waa maasanta waa ku soo gabagabeynaya isla warqadaada ayaa rabaa inaan su'aal kale ka weydiiyo waxaad leedahay Mareykanka waxa uga digaynaa in shabaab la duqeeyo haddii ay isku dayaan in al-shabaab ama dhulka islaamka ay dhibaateeyaan waxay kala kulmi doonaan cawaaqib xun warqada Mareykanka ma u dirteen Mareykanka warqad khaas baan u dirnay intaan warqadan aanan qorin ka hor oo hadaati warqadaasi kooban idin keeni karaa waxaa laga joogaa bil iyo 2 usbuuc baan filayaa habeenkii waxaan qornay taariikhda waa qoranta taqaana warqad waa idin keeni karaa 10 qodob baan ku qornaa wax alla wuxuu caalamka islaamka u geystay Soomaaliya u geystay oo ah dil iyo xasuuq iyo barakacin iyo hanti la boobo ay kamid tahay badda Soomaaliya sidaas ka guranayo macaalinta u guranayo iyo hantida Sacuudiga markii mataqaana Salmaan wiilkiisu ku wareejinayay lacag wuxuu ka qaatay oo baad ah oo u dhiganta mataqaana 5 qarni inta Sacuudiga ku noolaan karaan ama u dhiganta dawlad Cabbaasiya waagi mataqaana xoolaha uu qabsaday waa maasanta marka Xuseen xisbigiinnan ma xisbi Soomaaliyeed ba mise waa xisbi aad leedahay dunida muslimka ka shaqeyn doona waxaan ku yiri xisbiga mahdiga mataqaana caalam islaamku shaqeeyo istidaas aad waxa sheegaysaa arin Soomaaliya sheegaysaa hatta Mareykanka Miami arin ka dhacday oo muslimiin Amerikaan ah
oo la xirxiray magarasa Amerikaan mataqaan oo xiran muslimiin ah oo lagu qasbay oo la yiri raashinka dinsiina laba ka doorta la yiri waaya marka doofaar iyo xariir ka doorta mataqaan iyo raashin dhacay hatta waqadan qornaysa departmentiga aan leenahay heer degmo iyo heer gobol iyo heer federaalba idii dambigaasi ka dambeysay muslimiinta ku qasbay raashin dhacay in mataqaan hadiga markuu mataqaan hawa ismuujiyo khilaaf islaamku way qabanaysaa maragii waa la qabanayaa waa la xisaabi doonaa Xuseen waxa ay sheegtay inaa musharax madaxweyne tahay haddii ay sanadkan doorashada waqtigeeda la gaaro waa tartamay Soomaa haddii Allah awood la ogolaado oo ilaahay ugu simo waxaad rabtaa waxa hadda aad sheegtay iyo inta warqadan ku qoran ee aanan ka gaarin aan dalka ku maamusho haddii Allah awood la ogolaado dad badan waxay u arkayaan sheekadaada markii loo eego hadalhayn maalmaha dhanba jirtay ee laga cabsi qabay inay soo socoto oo ahaa in al-shabaab musharaxiinta ay dad ku soo darsan karaan ama musharaxiin shabaab la helo ee ka waran may aniga shabaab weligeena kama mid noqonin ma garatay dhammaan xarakaadka islaamka Soomaaliya ka jira anaga shiican ugu jirta Soomaaliya nahay dhammaan xarakaadka islaamka Soomaaliya ka jirta intuu mahadiga iska muujinay waxaan ka shaqaynaynaa in ay isku soo dhawaadaan ay heshiiyaan wax weyn uma dhaxeeyaan qolo kasta masaajid gaar bay leedahay in masaajid taqaan isbooqdo oo qalbiyoobado baan ka shaqaynaa dadka in la sukeeno uma soo isu qalbiyo oo midaysan oo xabad ka dhaxaynin inuu mahadiga noo yimaado kadibna mahadiga taqaan xawaaye aan la jaan qaadno isbedelkaas waa maasanta su'aasha ugu dambayso waxaad bixisay juhdi iyo maskax waqti badanna waad lumisay laakiin waxa hadda aad noo sheegtay oo dhan ah in warqadan aad gaarsiisay madaxweynaha iyo al-shabaab waxaan ku ekeenaynaa oo kaliya soo maahan in dad aadna aqoonin oo ku sheegay in al-shabaab ka tirsan yihiin aad email u dirtay telefoonna u dirtay madaxweynuhuna ilaa hadda aadnan helin isagana aad email u dirtay laakiin rajaad ka qabto waxaan ku leeyahay WhatsApp-kiisa khaaska ayaan u geliyay ku xalayto WhatsApp-kiisa khaaska ayaa xalayto u geliyay يا WhatsApp madaxweynaha xagee ka heshaado khadka iyo ku jiray waa ku qiraacada laba jeer bay ugu dambeeyay kaas wuxuu ahaa Xuseen Cali Cilmi gudoomiyaha xisbiga taageerayaasha mahdiga ah wuxuu faahfaahin ka bixinayay wada hadal uu sheegay in dawladda federaalka ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab ay muhiim tahay inay wada galaan iyo xiriir ula sameeyay al-shabaab iyo madaxweynaha Soomaaliya